waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano soo dhaafay dalku wuxuu adduunka alma oran karo iyagu waxay yiraahdaan dalka ugu dulisan laakiin aan ku soo koobno dalka ugu xun macnaheedu waxay tahay waxaan naloo arkaa dad isxadaya iyagu ha ka bilaabato dadka dawladda ku jira ha ka bilaabato dadka shaqaalaha ah waxaan ogahay ganacsatadu waa fiican yihiin weli culture-koodii islaamka waa hayaan siyaasiyiintu marka waxaa la rabaa inay taas wax ka bartaano ninka ganacsiga ah ama ganacsadaha ah marka uu qofku wax ku darsanayo wuxuu ku darsanayaa qof aamina hadduu qofkaas hal mar khiyaamana magaalada soo galaya qofkaas waxay ahayd siyaasiga marka hal mar la arko inuu khiyaamay in siyaasadda laga saaro marka anigu waxaan ballan qaadayaa ammaanadaas aad ii dhiibateen oo kan camoolaha indhahala kan dhagahala ilmahaas aan dhalan weli iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka roon kulli ammaanadaas iyagay ka wada dhaxaysaa inaan u ilaaliyo ammaanadaas oo qof dawladda ku jira ama magac leh oo ognahay oo ummadaas shilmay leeyihiin ka qaata waxaan ka ballan qaadayaa inaysan dhici doonin arrinta labaad oo aan pledge-kayga ahayd oo aan ballan ku qaaday oo dadka igu taageeran waxaa ka mid ah cadaalad dalkan wuxuu la burburay oo colaaduna noo haysataa oo qabyaaladda iyo shakiga nagu kala dhex jira na gaarsiiyey waa cadaalad darro weyn wuxuu sheegay aadan barre ducaale wuxuu sheegay golihii wasiirada la magacaabay waa dhab wey qof walba wuxuu rabaa inuu iska dhex arko waxaa laga yaaba qofkaas inuusan aqoonin laakiin uu raadinayo qof qabiilkiisa inuu ku dhex jiro waxaan idiin sheegayaa anaa ugu horeeyo madaxweyne ah anuu qabiil mali anigu Soomaali baan ahay Soomaali baa dooratay Soomaalida u dhaxeeya qof aan soo dhaweysanayo qabiil ku soo dhaweysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fogeenayo ma jiraayo